waxaa ka faa'iiday shal ano online ku gaday inaan maanta heer dukaan aan furta gaaray. waxaa ku bilaabay boorso iyo kabo boorso 12 xabo ah iyo kabo 8 xabo ah ku bilaabay. Assalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan. magacaygu waa Yuusuf, halkanina waa Cusub TV. ku soo dhawaada barnaamijkeena tiknoolajiyada maanta. barnaamijka tiknoolajiyada maanta waxaan aalaaba ku soo qaadanaa saameynta tiknoolajiyada nololeed iyo fursadaha ay bixinayso. barnaamijkeena tiknoolajiyada maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ganacsiga iyo tiknoolajiyada, kaas oo aan maanta kaga hadli doono isbedelada cusub ee e-commerce. e-commerce waa mid ka mid ah tiknoolajiyada cusub ee waayahan dambe soo korortay. e-commerce waxay isbedel xoogan ku samaysay hababkii hore ee loo ganacsan jiray, taas oo shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ahaa. maanta ganacsigu wuxuu ka gudbay heerarkii hore. isbedelo waaweyn ayaa ku dhacay. ganacsiga cusub wuxuu ka bilaabmaa fakir, wuxuu ku kobcaa internet, wuxuu ku shaqeeyaa mobile money. Facebook, TikTok iyo WhatsApp waxay noqdeen suuqyo la taaban karo. dad badan oo Soomaaliyeed, haween, dhalinyaro iyo xitaa arday waxay si maalinle ah u iibiyaan dhar, agab guri, adeegyo oo la isku qurxiyo iyo waxyaabo badan. aan tusaale u soo qaadano Ikraan Guuleed Cali, waa gabar ku nool Muqdisho. waxay baraha bulshada ku iibisaa dharka dumarka. ma aysan lahayn dukaan, mana lahayn shaqaale joogto ah, laakiin waxay lahayd mobile, internet iyo niyad qurxoon. magacaygu waa Ikraan Guuleed Cali, goobteeda ganacsiga waa Iki Fashion oo ku taala Taleex, oo ka soo shaqeynaysay dharka dumarka online ahaan, dharka dumarka soo shaqeynaysay sidoo kale waxyaabaha dumarka isticmaala boorsooyin, kawooyin, cabaayado, waxyaabahaas ku gadaa. social media waxyaabo badan oo iga caawiyay aaladaha kala mid ah Facebook-ga, TikTok-ga, Instagram-ka, Snapchat-ka. alaabteedu waxa uu gudbin jiray dadka ina alaabta markay soo dalbadaan kadib delivery u sameeyo, mootaha u saaro, goob kasta ay joogaan alaabtooda loo geeyo. waxaan qoto social media ina videoyadii waxyaabihii aan soo dhigo ay arkaan dadkii, xataa even dad qaarkood video call ku wacdi aad tustid alaabtii. waxaa kusoo bandhigi jiray aaladaha Facebook-ga, TikTok-ga, Instagram, Snapchat. والله alaabta hadba saa xayeysiinaysid ku xiran tahay. xayeysiintaada dad waxaa jira isla markii aad soo xayeysiis isla markii alaabka soo dalbanayaan, iyo dad waxaa jira oo xoogo inay xogtaadii waxa raadiyaan budgetkaaga sii gadaan, sii fiiriyaan videoyo kala duwan kasii dambeeyo waxyaabo badan. والله waxyaabo badan ha noqoto dhararka qaarkood original original hana u keento in isla markii maalinta xogta koobigeeda la sameeyo. waxaa ka faa'iiday shal ano online ku gaday inaan maanta heer dukaan aan furta gaaray. waxaa ku bilaabay boorso iyo kabo boorso 12 xabo ah iyo kabo 8 xabo ah ku bilaabay. hadda wuxuu marayaa heer oo boorsooyinkaas halaas ka sii badan oo dukaanka loogu imaado, kabooyinkaas halaas ka sii badan dharka inta. ganacsiga digitalka ah ma ahan mid caqabad la'aan ah. kalsoonida macaamiisha iyo tayada alaabta iyo waqtiga gaarsiinta dhammaan waa arrimo u baahan in si dhab ah loo maareeyo. caqabado waxaa ka mid ah ha noqoto dadkii aaminaadiyo xoogaho yaraato. inkastoo qofka markaa online wax kaaga soo dalbanaya waxaa laga yaabaa shaygu inuu ku dhaho shayga saare waba ma ahanba, oo shayga iisoo dhiibtay shayga video arkay isku mid ma ahan bataatan, iyo inuu qofka ku caayo hadda alaabtiisa ka daahisid. rafaadiyadaas camal la kulan, laakiin alxamdulillah والله dhanka hostiga hadii la online ka fiican, dhanka hadii la macaamiishane waxa u fiican dukaanka inay imaadaan oo shayga arkaan ay taabtaan hadhow online ka say cilad kaaga soo gudbinin. laakiin kooda hore customer-ka waa soo baray online ka ku soo baranay kadib dukaan gaari. okay waxa aad i caawinayay internet-ka, aad i caawinayay ha noqoto videoyadeeda inaan ku soo bandhigo TikTok, Snapchat, Instagram-ka, WhatsApp-ka inaan soo saaro videoyada meesha aan ku soo bandhigo dadka ka soo dalban jiray. okay lacagaha waxa lagu jiray ha noqoto EFC Plus-ka, Premier Wallet-ka, My Cash, waxyaabahaas lagu diri jiray lacagta. online-ka wax fiican waaye. soo maanta meesha ka soo bilaabay iyo meesha taaganahay isku mid maahan. dadka jecel inay online ka bilaabaan waxa fariin ugu dirayaa horta shaqada online ka shaqo fiican waaye. waa maanta ani horumar ka sameeyay
sidoo kalena dad waxaa jiro maskaxdooda fikrado badan ka guuxaya haddana qaab ay kusoo bandhigaan cabsi ay hayso أنا حديه لا يا العبسني وحكست سماء وحكست دا كوجو درستك بريا جولي سنة. markaad e-commerce wax ku iibinayso waa fursad uu qof walba heli karo haddii aad damacsan tahay inaad e-commerce wax ku iibiso waa fursad muhiim ah taas oo qayb weyn ka qaadan karta inaad horumar ka samayso ganacsiga looma baahno $10 si aad u ganacsato waxaa kugu filan hal taleefan hal aragti hal dadaal maanta dukaankaaga waxay noqon kartaa muuqaal toos ah lacagtaaduna waxay mari kartaa hal SMS su'aashu waa adigu diyaar ma u tahay intaasi waxay noogu dhan barnaamijkeena tiknoolajiyada maanta oo aan ku soo qaadanaynay qaybta ganacsiga kaas oo aan ku qaabadhigaynay e-commerce iyo fursadaha uu bixinayo waraysigeena Ikraan wuxuu muujiyay sida dhalinyaro badan ay ugu guuleysteen ganacsiga online-ka ah Ikraan waxay tusaale u tahay kumanaan dhalinyaro ah oo ku guuleysay ganacsiga online-ka ah heer ay gaartay inay furato dukaan iyadoo ay leedahay maanta waad ka faa'iideysan kartaa fursadaha ay bixinayaan internetka aaladaha iyo social media intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabadgelyo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 544 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub